بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu galaynaa darsigii sideedaad insha allahu tacaala ee ku saabsanaa baabka aynu ka hadlaynay barakaysiga saalixiinta umurahooda iyo ziyaarashadooda. hase yeeshee waxaynu ku dhex jiray hadda baab kale oo soo dhex galay caaisha markii nebigu qubuuraha baqiic ziyaaranayay uu guureeyey habeenmarkaa guureeyey sala allahu alay wasalam ay ka daba tagtay caaisha ka daba guurasay ee nebigu ogaaday inay ka daba timid laabtii ka dharbaaxay ayaa waxay nala gashay baabkii jinnisaarka iyo shaydaan eriga. nebigu intuu laabta ka dharbaaxay iyo intuu ka saaray jin iyo intuu shaydaan ka buubiyey intuu ka barakeeyey intuu madadiyey ayaa baabka ay nala gashay. marka baabkaas horta dhamaystiraynaa. xadiidkii aan ballan qaadnay oo nabi ciise calayhi salaatu wasalaam inuu qabriga nabiga ziyaaran doono akhir zamanka oo aynu nidhi waan ka bilaabi doonaa darsiga dambeaynu ka dhigaynaa insha allah. horta fasalkan aynu dhamaystiraynaa. fasalkan jinnisaarka iyo ku saabsanaa shaydaan eriinta ayaynu horta dhamaystiraynaa. darsiga sideedaad aynu ku koobaynaa. wa fii subul lhudaa warashaad fii siirati khayr lcibaad, kitaabka la yidhahdo dhabooyinka hanuunka, subul lhudaa hanuunka dhabooyinkiisi, warashaad iyo toosnaanta, fii siirati khayr lcibaad oo ku saabsan siiradii khalqiga oo dhan kii u khayr badnaa sala allahu alay wasalam siiradiisa kitaabka ah. waa kitaabkan idin lahaa siirada hadda aynu haysano kutubu siira kitaabka ugu weyn weeye uguna muctamatan sala allahu alay wasalam oo qoray lilxaafid shaami. xaafid shaami kitaabka waxaa ku taala can yaclaa bin mura wuxuu ka wariyey radi allahu canhu. waa xadiidkii ninka aynu ka warinay hore aynu soo marray weeye oo ku celis ah. xadiidkii saxaabigu uu yihi gabadh baan annagii nabiga ula socno oo keentay wiil ay dhashay oo jin ku jiro, dabeetana nabigu uu ka saaray calayhi salatu wasalam ku tufay. waa xadiidkii waxaan usoo qaadanay sharaxyadiisa ayaynu gelaynaa. marka xadiidkii waa inaan soo qaadano, marka waa muhim, waxba dhib male ku celintiisu. can yaclaa bin murata waxaa laga wariyey radi allahu canhu. waa iska naqsiin buu inoo noqonayaa. qaala wuxuui saafartu waxaan la safray maca rasuulillahi rasuulka ilahi maciisa sala allahu alayh waali wasalam. fa nazalnaa waxaan degnay manzilan degaan baan degnay, meel baan degnay oo baadiyi u baxeen. fa aqbalad waxaa soo qaabishay naga hortimi imra'atun haweeney biibni lahaa bay la soo qaabishay wiil ay dhashay iyadoo wadata. fa qaalad waxay tidhi yaa nabiyallaahi nabigi ilaahayow, maa kaana ma ahaan filxayi reerka dhexdiisa jilibka dhexdiisa qulaama wiil ma jirin axabo aan ka jeclahay ilaya xaggayga minimnii wiilkayga hada kana. fa asaabathu waxaa asiibtay almowtatu dhimasho, iska geeriba asiibtay, geeriba waa dhib ka dhigtay. fa ana anigu atamanaa waxaanba jeclaystaa mowtka inu iska dhinto. waa ku daalay rafaadka naga gaadhiyo rafaadka isaga haysta, waxaan iska jeclaystaa in ilahay uga raxayo dhinto. fadcullaha ilaahay bari lahu isaga u bari, ilahay u bari u ducee. allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam. fa adnaa wuu soo dhaweeyey rasuulullahi rasulka ilah baa soo dhaweeyey sala allahu alay wasalam algulaama wiilkiibu soo dhaweeyey minhu xaggiisa usoo dhaweeyey, xaggiisa usoo dhaweeyey. uma qaala dabeetana wuxuu yihi bismi illaahi bisimki ilaahay, ana rasuulullahi anuu rasuulka ilaahay baan ahay. ukhruj bax adu wallahi cadow ilaahayow wixii ku jiray ee shaydaanka ku jiray jinka ku jiray yuu yihi bax. nabigu amr buu siiyey calayhi salatu wasalaam saddex goor buu yihi. uma qaala dabeetana wuxu idhabi la tag biibniki wiilkaaga, lam taray arki maysid ba'san bale arki maysid insha allah hadii ilahay doono dhibku arki maysid la tag buu yihi. uma dabeetana rajacnaa waanu soo noqonay annagiyo nabigii waa soo wada noqonay buu yihi. fa jaa-ad waxay timi umulghulaam wiilka in hooyadiisaa timi. fa qaalad waxay tihi waladii ilaahay baan ku dhaartay bacadaka kugu soo bixiyey kugu soo saaray bilxaqi xaq kugu soo saaray maa zaala kamuuna zuulin min caqaliiq limaani lxayi shilibka wiilashiisa kan u caqli badan inuu ka mid yahay kuwa u caqli badan. taas waa riwaayo oo riwaayadan hadda zaaid bay ku dartay riwaayo kelmado zaaid ah kii hore ka zaaid ah ku jira sidaa arkaysid. warawaa wuxuu wariyey axmed bin manic sheekha la yidhahdo can ibn cabaasin wuxuu ka wariyey radi allahu canhuma ana imra'atan haweene baa jaa-ad ula timi biwaladihaa wiilkeedii ula timi ilmaheedii ilaa rasuulillahi rasuulka ilahi ba ula timi sala allahu calayhi wasalam. fa qaalad waxay tihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow, ina ibnii wiilkayga haadaa kanihi bihi waxa haya junuunu waaliba haysa, wa ina isagu la yaakuduhu waxaa qabta yaakuduhu waalidu way qabataa cinda ghadaa'ina wa cashaayna cinda ghidaa'ina wa cashaayna markaan qadaynayna markaan cashaynayna agteeda qabataa. fa yufsidu caleyna markaasuu naga fasahaadiya naga khariba cashadii iyo qadadayba. ama dee wuu ku galgashaama iyagu kala laaya ama inta isaga xidhxidhayaanoo bay ka qadayn kari waayaan ama hadduu duna ciid buu kaga daraya wax walane. qaala wuxu uhi fa masaxa wuu masaxay wuu taabtaabtay rasuulullah rasuulka ilahi baa taabtaabtay sala allahu alay waslam sadrahu laabtiisa. wadacaa lahu uu duceeyey fasaca wuu matagay sacatan matagis. fakharaja wuu hanqaacay fakharaja waxaa kasoo baxay min fiihi afkiisa
وفي لفظ waxa fi makhri sankiisa waxa ka soo dhacay مثل jarwi sid wax u samaysan dhasha ayga oo kale ama dhasha bisad oo kale jarwi waxa la dhahaa dhasha bisada iyo dhasha ayga iyo dhasha haramcadka iyo dhasha waxyaabaha isku bahda oo bahda libax ah dhashooda yeeyda iyo ayga iyo ayaa la yiraahdaa jarwi dhashooda la jarwi inagu damac gaar kuwa uma dhaqan dalbisada iska dheh farshafiya waa la shaafiyey ala soo doomadow ka soo dhacay wax madow ka soo dhacay farshafiya waa la shaafiyey uu bogsaday wiilkii وروى الإمام أحمد وحوري وابن أبي شيبة وحي وريان وابو نعيم أي وريان عنهم بجندب وحي كوريان جندب هو يدس قال وحيت رأيت وحارك رسول الله رسولك الله بارك صلى الله عليه وسلم لما انصرف مركو كسور نقضي من جبرة العقبة مركو كسور نقضي حكي جاء ذو هوتي من امرأة هويني ومعها وحى لصعدة ابن ويل والله يا رسول الله بيسا مصر والله هيسو تابش هيسو مصر وتابش وحبا تابتي شنبا تابتي وي دردري ولا دردري قالت waxay tiri yaa nabi ilaahayow hada kan bihi balaa balahaysa la yataka la hadli maayo nuuq oran maayo amsi fa amaraha uu amray gabadhii uu amray rasuulullah sallallahu alayhi wasallam fajaad waxay keentay batoor xujaarti baaldi dhagax ka samaysan fihi ma biyo ku jiraan fa akhadahu uu qabtay nabigu alayhi salatu wasallam fa fajja fihi afka uu tufay wada'a fi ud'i ma biyo 10 ku tufay afka ugu garay inta afka ku shubtay nabigu buu afkiisa uga saaray wada'a fihi u duceeyay وعاده وفيه وكعلي ثم أمرها دبتنا وأمري فقال اسقيه كورابي معناه بالد يجيبوا أنتوا بيه نبوا أفكار درصدي أنا كبضي بو أنتوا بكعلي بيه كتفي مركزوا لي كورابي فقالوا اسقيه كورابي واغسليه أمي في نحس أمي قالوا واحد فتبعتها وراعي قبل يصير راعي فقلت وحاني صبي لي إيش أشوف من هذا ما بيها وإيش أشوف صحابي بين قبل بيها النبي عايش كتفي إيش أشوف قالوا واحد gabadhii asxaabadii kala raacday waxay tiri biyahan qaar iga soo shub waxaan rabtaa inay iyada 10 ka dhigato tahliil ka dhigato biyaha nabigu ku tufay faqaad khudi ka qaado min xaq sax ka qaado faaqatu min waan ka qaatay bitri jafnatan baan ka qaatay xeero waan darsaday waxaan darsaday hadda jim bay ku qoreen halkan jim baa ku qoran kitaabka jim baa ku taal laakiin xaflatun bay waqti xaflatun waxaan toobo kale ama antuugo fasabaqtu waxaan فسقيت ابن ويلكي بان كورابي عبد الله اها فعاش ونولاday فكان وحا من بره بارناديسا waxa kamid aha ma sha Allah ilaahay doono baar way noqday an yakuna inuu hado wiilkayga baan kawarabiyo way noolaaday baarna way noqday wala qatil marta haweeneedii wala kulmay oo arkay fazaamad waxay sheegtay anna in wiilkeedii yara inuu wax arkayo bari aynu bogsadade oo aqal oo wax ka say aqli leeysa aan ka aqoonnas dadka aqliyadooda kala mid aan buu yeeshay lambarka ka qabo halka hoose ee aan xariiqda saaray ayaad markaa u tagaysaa xadiidka macnaha sidii kitaabkii aan uga soo raray maana bedelin halkaas hoosaan lambarkii takhriijkiisi way halka hoose wa akhrajahu al-bayhaqi lambarka markaa ka qabato bayhaqi baa soo saaray fi dalaa'il buu soo saaray jiska shanaad bogab 444 way kaasi kalabaad markaa marina lambar 2 ka qabsan ku dhahay halkii buu soo noqonaysaa isagana waa saas oo kale marka lambar 1 baan halka ugu qoray markuu dhamaaday wiilkii wuxuu noqday ka dadka aqli badan bay tir warawaa wuxuu wariyay isxaaq bin raahawayh wa ibn abi shaybata an jaabir bin abdullah waxay ka wariyeen annahu kharaja inuu soo baxay jaabir bin abdullah kii hore yacla bin murratu aha kana waa jaabir bin abdullah rasuulka raacay sallallahu alayhi wasallam مع رسول الله رسولك معيس الراعي صلى الله عليه وسلم في سفر بور راعي باديها فإذا وقت قبل نحن نروح وصو بحري بامرأة هواني باقال حقيقة عرض وصو بحضي لرسول الله رسولك الله وصو بحضي صلى الله عليه وسلم مع روحها سبي بقى ويلير لما يربيه يسطا او تحمله اي سده فقال واحد يا رسول الله رسولك الله يوم ان ابني ويل كيغن هذا كنه ياخذ الشيطان بقى قبطه عمر شيطان بقى سو دريه كوكعه كل يوم مالين والبابا 3 مرات 3 قرب كوكعه لا يدعو كما تغو فوقف وهو استاغي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم فناوله وديبت فتناوله هو قاضي ويلكي قاضي فتناوله ويلكي النبي قاضي فجعله وحكى بينه وسق دحديسا iyo bayna muqadamada raxli kooraha xaqiisa hore dhexdooda
فقال وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فقو درك عدو الله عدو إلهي أنا رسول الله معناه ثلاث صدح قرب سدا ثم دبتنا ناولها ودي بإياها السجا فلما رجعنا مركز صون نقني عرضت لنا ونوصل من بحري إسلامتي وين نقهرت موي المرة هوين دي ومعها كبشاني وي معها بالك وكبو ذي قرالك معها وحها كبشاني عرضت ونوصل بندكتي وي نوصل بندكتي ما حبك ما غلطنا عرضت نوصل بحري ما هي ونوصل بندكتي وي لأن أنا قبل نوصل بندكتي المرة هوين كبشاني من مركان والله لبور كبشاني من والله مركان labada mid baa khaldana meesha kab shayni ah oo carada saas tax ku tahay ama macaha baa u qadarin macaha kab shaani taquduma ay hogaaminayso wasabiyu sabigiina taxmilu way xambaarsan tahay faqaalad waxay tiri yaa rasuulka ilaahi aqbal min iga aqbal haadin labada neef iga qaado macnaha فهو الذي له ورث بعثك بالحق حق وسو بخيه ما عاد اليه كما سو نقون بعد انت كذب شيطان كما سو نقون فقال رسول الله وحولي صلى الله عليه وسلم خذوا سو قاد احد ما لبدا ور midkood soo qaada lambar 2 halka ka qabo oo halkii hoose xaashiyada hoose udeg hoose واخرجه دارمي باسنا وريي جزء كواد صفحه شناد بكوري واخرجه waxa wariyay ibn abd al-barri fi tamhid kitabka la kuuriyay juzka koowaad buu ku wariyay 223 buu ku wariyay halka ay ku soo noqdaan matnigaagii حديث كسون نقو لمبر لبا كسون نقو ماشي ان كوغو شيغay لمبر لبا ورواه وحو وري الامام احمد وابن سعد وري والحاكم حاكم وري وصححه صحيح يا لا بن مرتو كوري قال سافرت وان سفري مع رسول الله الله معي سفري صلى الله عليه وسلم الى مكان النبي ولا سفري فرأيت waxaan ka arkay inuu xaqiisa shay عجب la yaab leh ayaan ka arkay فذكر حديث وشيء soo maray وفيه waxa ku sugan فاتت waxa u timi imraat haweeney فقالت waxay tiri ya nabi allah nabi ilaahay in ibni wiilkayga hada kana bihi lama muwaalib haysa ama dardaraad ba haysa wada daran qaaday منذ 7 سنين 7 سنه مدابا ياخذه قبطه في كل يوم مالو مره لبا غرب قبطه حنونkaasi فقال وحو udnihi soo dhaweey soo dhaweey fatafara wuu ku tufay فيه afkiis وقال اخرج بح buu nabigu عليه الصلاه والسلام شيطانك بيقول عدو الله يا عدو الله انا ورسول الله رسول الله بارهي ثم قال له وحكو اذا رجعنا markaan soo noqono فعلمنا ان ogeysi ma sanaa sidoo sameeyay wuxuu yeelay inta halka wax ku dhamaday lafdul xaafid shaami intaas xadiis waxaan ka soo raray xaafid shaami kitaabka siirada ah weynaa baa ka soo raray اللهم صل على سيدنا محمد رحمه الله تعالى قلت وحنا الحديث حديث كان اخرجه وحصو صار جماعه افر بدن منهم حكمت على الامام احمد بن حنبل في مسنده بكسو صار رحمه الله تعالى بسند صحيح جزء افراد 170 بكسو صار او مسندka واعترف halkaan waxaan ka booday raadi واعترف wuxuu qirtay waxaan ku qorayaa raaligaada waxaan qoraalka wuxuu dibka keenaya waa mobile baan ku qorayaa computer ma haysto mobile baan ku diyaarinaya waxaan ku qorayaa marka kelmado badan baa iska khaldamayo laga boodaya واعترف wuxuu qirtay al-albani بثبوت انه سوغان الباني بدعيها واقري انه سوغان حديثكني وصححه وصحيح يعني وصحته صحيحنمدي سوقرا فصححه وحو صحيح في تعليق وصار على حديث المشكات كتاب مشكات المصابيح له حديثيسه رقمك 5922 يوفي قراءه كذا من رسائل الرسالوين كذا كميده ايو ku saxiixay في قيلها من رسائله وku saxiixay كو واخرجه او انت هورين soo maray inta xaashiyada ka bood matniga hoose ka qabso waqaala ka bilaabanaya waqaala wuxuu abu xuseen halka ay xariiq u dhaxaysi ahayd si uu kala qabto inta taariiqa xaashiyada iyo inta matniga ah waqaala wuxuu abu xuseen bin abi ya'la ninkii qoray halka xariiqa u dhaxaysiyo si uu qortay inay matniga ku jirin waqaala abu xuseen wuxuu yiri bin abi ya'la al-farrawi al-hanbali fi طبقات الحنابلة كتابك اللي يراهdo طبقadaha hanbaliyada wuxuu ku yiri قال أحمد وحوي أحمد بن عبد الله شيخ اللي راهو سمعت وهان مقلي أبا الحسن علي بن أحمد بن علي بن المكري المعراني شيخ اللي راهو قال حدثني وحايش يكي أبي أبهي عن يدي أبوي بكوريسنا قال كنت وحنا في مسجد أبي عبد الله أحمد بن حنبل محمد بن حنبل إمامك وينا أفرت مضوط كمدها شيخ يلا أحمد بن حنبل مساجد سنفوقي فأنفذ إليه وحو أصوات إلى المتوكل بقر عباسيين تبرك هايستي اللي رجل المتوكل على الله أياه وحو أصوات إليه بصاحب له صاحب من صاحبك
boqorkii madaxweynihii waddanka haystay baa usoo diray nin saaxiibkiya yaclamuhu ogeysiiye axmed ogeysiiya ana lahu jaariyatan inuu gabadh leeyahay boqorku bihaa sarcun suracyo qabta was'alahu wuxuu weydiistaa yadcu laha ilahay inuu usoo baryo laha iyada bilcaafiyata caafimaad usoo baryo axmed buu ku yidhi usoo ducee madaxweynihii baa kusoo yidhi fa akhraja lahu axmedun axmed wuxuu usoo saaray ninkii lasoo diray boqorka soo diray wuxuu usoo saaray nacla khashabin kab qori ka samaysan oo bishiraakin suuman le bishiraaki quusin waxay leedahay timirta maydhaxda timirta ayaa waxa u tahay looga dhigay macnaha xarko laga soo hay ayaa looga dhigay xarko looga dhigay suuman bishiraaki quusin xarig tibraad ama maydhax tibraad suumankeed lil wuduuy waa lagu weysaystaa kabaha wax kale looma faleeyo waa qori ka samaysan timirta xadhigeeda lagu sameeyey looga dhigay suuman uu ku weysaysto imaamku fa dafacahu wuxuu u dhiibay kabihii mid ka mid a ilaa saaxiibin lahu nin saaxiibkiisa u dhiibay sayid axmed baa wuxuu u dhiibay nin xertiisi ka mid a buu yidhi kabtan qaad wa qaala lahu wuxuu ku yidhi tamdii waa tegaysaa ilaa daari amiirilmuminiin daarti amiirka muminiinta macnaha boqorka islaamka haysta mutawakil daartiisi baa tegaysaa wa tajlis waxaad fadhiisanaysaa cinda ra'sil jaariyati gabadha shaydaanka ku jira oo sheegaya surciyada qabta madaxeeda agtiisa fadhiisanaysaa wa taquulu lahu waxaad ku dhahaysaa lahu jinka waxaad ku dhahaysaa lahu isaga waxa ku jira surca waxaad ku dhahaysaa jinka surciyeynaya waxaad ku dhahaysaa yaquulu laka wuxuu ku leeyahay axmed imaam axmed 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 wuxuu ku yidhi ayuma axabu ilayka keebaad jeceshahay labada kee ku roon takhruju inaad ka baxdo min hadil jaariyati gabadhan inaad ka baxdo jaariyadan inaad ka baxdo oo asaco inaan kugu garaaco kula dhaco oo asfacal aakhira ama inaan kula dhaco ta kale oo inaan kula dhaco bihada nacli kabta inaan kabta kula dhaco kugu garaaco kabeeyo iyo inaad ka baxdo gabadha kala dooro ku dheh famadaa ilayhi wuu u tegey wa qaala lahu wuxuu ku yidhi mithla maa qaala axmedu sidii axmed ku yidhi buu ku yidhi si lamid a fa qaala maaridu shaydaankii maaridka wuxuu ka yidhi calaa lisaanil jaariyati gabadha magaceedii carabkeedii wuxuu ku yidhi gabadha carabkeedu ka hadlay asamcu wadaacatu asamcu maqal baa u sugnaaday wadaacatu adeecis waanu maqlaynaa waan adeecaynaa low amarana hadduuna amro axmed imaam axmed hadduuna amro allah nuqiima fi lciraaq ciraaqba inaanaan ku nagaan oo ciraaq baanu ka guuro ma aqamna ku nagaan mayno bihi ciraaqba hadduu yidhi ciraaqba kuma nagaan kartaan baana xataa ku nagaan iska daa gabadh ka baxee inahu isagoo adaaca allah ilahay buu adeecay waman adaaca allah qofka ilahay adeecana adaacahu kulli shay walba adeeca buu yidhi shinkii baa yidhi maaridkii madaxa adkaa baa yidhi xifriidka ahaa xifriid madaxa adag bu maarid man adaaca allah qofka ilahay adeeca adaaca kulli shay walba adeeca wakhraja ka baxay meel jaarita gabadhi ka baxay wahaadadu way degtay gabadhiiba wazuwajid waa la guursaday wazuwajid waa la guuriyey warzuqad waxaa lagu risaaqay awlaadan carruur ba dhashay falama maata markuu dhintay axmedun axmed caawadaha wuu kusoo noqday almaaridu cifriidkii maaridkii ahaa fa anfada mutawakil baa wuxuu u diray boqorkii mutawakil ahaa ilaa saaxiibkii buu u diray abubakar almarwadi axmed saaxiibkii abubakar almarwadi buu u diray cid wa carafahu xaaladii u aqoonsiiyo uga sheekeeyey siday ahayd iyo sidii axmed uga saaray iyo fa akhada marwasi wuxuu soo qaaday nacla kabti axmed wamadaa wuxuu la aaday ila jaariyati gabadhii buu la aaday fa kalaamu cifriidkii baa la hadlay calaa lisaana carabkeedu kala hadlay gabadhii buu ka dhex qaydiyey laa akhruju bixi maayo min hadil jaariyati gabadha ka bixi maayo walaa adiicika ku adeeci maayo adiga marwadiyow walaa aqbalo minka waxba kaa aqbali maayo adiga axmed bin xambal adaaca allah ilahay buu adeecay fa umirnaa waxaana la amray bidaacti inaan adeecno waan ku khasbanay isaga ilahay baan amray inaan ku adeecno undur fiiri dabaqaat alxanaabila ka fiiri juska 247 waa meeshan kaa lahaa arwaaxda dayibada ah qaabilsiinteeda ayaa jinka lagu saaraa oo laga horgeeyaa arwaax dayibada on bay ka cararaa jinku iyo shaydaanku warawaahu waxaa wariyay asuyuudiyu isna suyuudi baa wariyay fi akaam almarjaan kitaabka la dhaho fi axkaam aljan xukumada jinka kitaab ka hadlaya oo akaam almarjaan la yidhaho safxada 167 oo suyuudi qoray yaraduna suyuudi ayuu ku wariyey wa qaala wuxuu yidhi ibnu taymiyana wuxuu yidhi sheekhi bidcada ibnu taymiya wuxuu yidhi fi fitaawigiisa wuxuu ku yidhi isagoo arrinta qiraya jinsaaridda ah qad la arkay yuxtaaj in loo baahdo fi ibraa'il masruuci qofka surciyaha qaba marka la bogsiinayo bogsiintiisa fiigeeda waxaa loo baahdaa wa dafcil jin iyo jinka ka difaacidiisa canhu hakis jinka marka laga difaacayo in loo baahda laga yaabo ila darbi garaacis in loo baahdo oo la garaaco sidee macna xadiisyada badnayn kusoo marray wuu daliishanaya ila xaafid buu ahaa fayudrabu waxaa la garaacayaa darban garaacis katiiran fara badan jiddan aad iyo aad baa la garaacaa marar jinka qofka ku jiro wadarbu garaacistuna inamaa ikrama yaqa waxay ku dhacaysaa calal jinniga ku dhacaysaa jinniga ku jira walaa yaxsu maba dareemayo bihi sagaal masruuc ka surciyaha qaba ma dareemayo
حتى يفيق إلا أم يرسده المسروع سرع يقبه إلا أم يرسده ما بدريم يقول ويخبره وحكى ورميا أنه سوق الله من حسين دريمين بشيء وحوا قراعيسي دل إيو دنجد إيو من إنه دريمين marka waxyaabaha lagu garto waxa kamid ah inuu jinka ku dhacayo loo garto waa inuu baranin waa inuu san dareemin waa inuu xanuunsan hadduu xanuunsado meesha barato jin kuma jira waa xanuun kala haya laakiin mid ahmaq oo badan ma intuu maqlo waa la dilaa nabiga garaac jiray intuu maqlo uu dadka dilo ka ka siiba la arkay qaar badan oo dilay baa la arkay ku dilaysay u garaaciyeen aan cilmi iyo diintoona lahayn taqwana aan lahayn cabsina aan lahayn jinno uusan ka baqayn qofkii aan jinba ku jirin oo meel walba ay bartay meel walba gooday ama ku dhintayba baa la arkay انظر في مجموع الفتاوي سلا ابن تيميه وحكوا ورا مجموع الفتاوي جزء 9 صفحه الحدنات لابن تيميه ابن تيميه قرن وقال ايضا مره بعض ابن تيميه وحيد فانه يسوي شرع وحا السرعيه الرجل انك قف ولا سرعيه سرعيه كو دعمانها فيتكلم وحكوا الله بلسان العرب لا يعرف على قرنين معناه معنيس ايش قدروا ليميا ويضرب ولا قراعه على يديه لو يسمعوا ضربا قراعه عظيمه وين لو ضرب به هدي لو قراعه جمل هدي لو قراعه لا أثر به أصابين لها أثر عظيم سامي وين سامي لهد والمشروع قفك المشروعية رقبنا مع هذا أساس مع هذا يصير لو قراعي لا يحس ما دريم يبدر بقراعسته ولا بالكلام هذا الكلام دريم باي الله الله الذي يقوله وكو الله يسوق هذا الكلام كو الله هذا دريم باي وكو الله انظر في مجموعة الفتاوي هذا جزء أفر الواتنات لا بقول تضرب ثلاثة مسجد كبير وقال أيضا مرصد هذا نوع ابن تيمية ولهذا سيدا درت باقد يحتاج الله بهان كرا في إبراهيم مشروع قفك سرعيها قبل مركز البوكسينيو ودفع الجن عنه يمرك الجيك لقد دفاعيه إلى ضرب قراعس فيضرب ولا قراع ضربا قراعس كثير فربض جدا هذه وضرب قراعسته إنما يقع يكون عيسى على الجن كركيس ولا يحس بالمشروع كان القراعي ما دريميه حتى يفيق إلا ميرسده المشروع كسرعيها قبل ويخبره وحكى ورميا أنه سوى الله يحس إنه ندريمين بشيء شو من ذلك على كمذا ولا يأثر سامين لما قراعستي في بدنه الشركيس ويكون وحنا قرية قدر انضرب من لو قراعي بعسن قل قوية الحوق بدن على رجل لبضل وضبل قراعي نحو 300 صدق بقول وشير أو 4 بيتنا أو 4 بقول شير ضربة قراعس فلا نعيا وأكثر ينك بدن وأقل ينك يربى بحيث من هدنا لو كان هدوها على سي هدي قراعسنا كل عيش روح ينسجها لقتله وبدل الهد صدق بقول نقدر يودي الهد وإنما ينكر ما هو يسوي كل على الجني جني وكل عيسى والجني جني يسحوا رواقة يوقيل ليا ويسرقوا قيل ليا وعباضة يوقيل ليا ويحدثوا ويحدثوا وش كان يلحظ اللي ذاتك جوجا بأمور أربع وش كانية متعددة تربط وش كانية كما قد فعلنا سيدنا لو فعلنا أنا قاعد أقول له ليه نحن لو هذا ركع وجلس أصاري وجربناها أن صوت تجربني مرات المرة بدن كثيرة فرضان يدور وديران يوصف الصفات ترمانتهم بحاله خلق كثيرين خلق فرضنا إن الجوجين حاضر هايين مجموع الفتاوى كثيرين جزء سجلت النار سبحان الله ثنا بس نقول هذا لما صدح وقال ابن قيم محيي وتلميذ ابن تيمية اسمه في زاد المعاد كتاب كان زاد المعاد وحكوا في هذه خير العباد وحدثنا وحي شيخ أي شيخ بشيخ شيخ ابن تيمية شيخ يجيب أي شيخ أنه قراها إنه كأخري ها آيات صوصعته أفحسبتم أنما خلقناكم آيات 100 مرة مربك أخري مرة أي قوله تعالى إليه قولك سيب شيخ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون آيات المؤمنون سورة المؤمنون كشرته بقول كوي طبعا بقول شيء طبعا عاد سورة قد أفلح في أذن المصروع بكو أخري قفل الصروعية قبل دكتك أخري فقالت الروح ذي بالله يتري أرواح ذي بالله شيء معناها بقوله نعم ها ومد بها صوت كيس روح ذي كوتشر تمايا وحي كوتشر روح ذي كوتشر لي باوحي نعم ومد بها صوت كيس كرو غيلي قال فأخذت الله عصر قل بانقات وضربت بها وكو قراع في عنقه حددada luqunta kala dhacay حتى كلد إلا إدارين يدي لبيد قعود وحايد بالتيمية من الضرب قراعس إكدارين ولم يشك كما شكين الحاضرون ضدك جوجي أنه يوتن ودمنايو لذلك الضرب قراعس عن قراعين ودمنايو عندنا شك ما قلنا ففي أثناء الضرب قراعس تحدث أنا وكجنا قال وحتى أنا أحبه واجعله مثل أنا أحبه واجعله فقلت سبحان الله أيضا هو يسوي الله يحبك يسوي كما جعله فقال مثل أنا أريد وأن دونيه waxaan doonayaa ana xujo ina la xajiyo faqultu waxaan la yuriidu ma doonayo faqultu waxaan ku lahayd huwa isla yuriidu ma doonayo ay xujo macka inuu kula xajiyo faqaal waxaan tiri ana anigu addacu waan ka tagaya karaamanta la karaamin adigu karaamaynayo ibn taymiya asla ku faanaya saasay tiri qaal wuxuu faqultu waxaan la maya walakin daa'ata lillahi wa rasuulihi uga bax addacis ilaahay addacis iyo rasuulkiisa addacis xabaari karaamayn qaal waxaan tiri fa aman anigu
akhruj minhu waa ka baxaya qaala wuxuu faqacada almasruucu kii surciyaha qabaya soo fadhiistay yaltafit isagoo daymanaya yamiina wa shimaala midiga bidix isagoo daymanaya wa qaala wuxuu maa jaa bi maxaa i keenay ilaa xadrati sheekha xadratiisa maxaa i keenay ibnu taymiya is sheegaya sheekh isu sheegaya sheekha xadratiisa maxaa i keenay buu yidhi qaaluu lahu waxay ku dhaheen wa hada darbu garaacistaasi kullu dhammaantii qaaluu lahu waxay ku dhaheen wa hada darbu kullu ma wixii garaacis kugu dhacay baad leedahay wa hada darbu kullu ma wixii garaacis kugu dhacay kullu dhammaantii baad leedahay maxaa i keenay faqaala wuxuu wa calaa ayi shayin yadribuni oo muxuu igu garaacaya sheekhu walama dambaabine muxuu sheekhu igu dili lahaaba saa ii dilay sheekhu ولم يشعر ما دريمين بأنه سوى وقع به إنه كل عي أضرب قراعس البتة تجيبي أهم بقول انظر في الزاد المعاد في هذه خير العباد اللي ابن قيم الجوزية جزء أفراد سبحان الله لحدا للسدادات إلى لحنا سيارات بكسر الشيخ ابن تيمية حديث كواكب صوم رئيس ومزفر ويا قبلي لكن وانا سكع لنا ما دام إنه كنا قلنا حديث مزفر ويا أو قبلي ويا نبي قتلي سرعيان قبايا يدعي وفي الحديث الصحيح حديث صحيح واقص أرري المتفق على الاسوافقي عن عطاء بن أبي الرواح وبخاري مسؤولين عبد بن رفاعة القوري قال يقول لي أنا ابن عباس ألا أريك ما كنت امرأة هوينة من الجنة كمذا قلت وحنا لبلاها يتص قال ابن هذه تاس المرأة هوينة ذا أسود لا مذو أتت النبي أوتي صلى الله عليه وسلم فقال ضحت إني أسرع أنا قوال سرعية وأسرع وضوان دعاء وأصوحها وإني أنا أتكشف وافد ما معنى وانقاو اسمه فادعوا الله إلهي إبر اللي أنا قال وحولي إن شئت هذا دونيسد صبرت وصبري ولكن جنة شنا الله شنا أنا كوب الغاضي وإن شئت هذا ضدتنا دعوت الله إليه من بريو أن يعافيه وعافيه فقال وحيت الأسبر وصبري فقال وحيت هذا إني أنا أتكشف وانقاو اسمه وان عوراد كشفنتا فادعوا الله مركان صوح معنا فادعوا الله إلهي إبر اللي أنا لا أتكشف إن أنا فيد من وأنا مركان صوح أنا عوراد أنا في من فدعا له ودعي إن عوراد فيد من رواه البخاري ووري وحكوري رقمك وحكوري صدح بقول صفحة صدح بقول أفر بقول أفرتني سداتني أفر حديث التريدس تهيكون يلح بقول يكونتني لو مسلمنا وحكوري رقمك وحكوري الله مستعان على مرتسفون كن يهال بقول لواتني سجال حديث التريدس تهي لبا كن يشم بقول تضواتني اللح تلك المرأة سائلة هوينة ذا سؤال شيء هي مزفرة الحبشية توي ومزفرة الحبشية توي على سيد فراس دي أسود دام دوبيد الضويرة الإيراد أصحاب ده أصحاب الصبر كبرنايد كما في الاستيعاب سيد كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر القري استيعاب كفير جزء كفراد كوني سقال بقولي صدني سديد وانظر في أسد الغابة في معرفة الصحابة كتاب كله الحافظ ابن أثير رقمك جزء اللي حاد صدح بقولي صدح صدر والإصابة في تمييز الصحابة كفير الحافظ بن حجر العسقلاني وعمدة القاري كفير وحسنا واجوز كسدادات لا بقري كو وعمدة القاري بشرح صحيح البخاري الحافظ العيني جزء كوي لواتنات صفحة الله بقري فترنات وورد وحصور لا تصريح عضين باسمه مقعد العدي في صحيح البخاري في كتاب المرضى وصور كتاب كذا بوكا وكذا الله باب فضل ما يسرع بابك فضل قفك صوحة صوحة من ريح ضبيل الصوحة ضبيل قشي معناها جين الضبيل جين مرتين وحوي رقمك وحوي أفر بقول سديتن أفر حديث ترديس تهي شنكر يلح بقول يلحذن يكونتن يلبا أو صحيح البخاري كمده يقال وحلا اسمه وقع صعيرة والها بلغونا نسير صعيرة بالتصغير لتصغيره وقال بعضهم وحلا الشقيرة أو شين الآخرية بمعجمة الآخرية فدب عليه مضمومة جذن أو شين كيه وقافر يقاف مفتاح كل شقيرة عليها قيل وحلا إنها أيضا ما شدت خديجتي أفرج جرتوي واحد معناها خادمات خديجة لا هي خديجة لا واحد بقرد تاجرة واحد سوجد النبي قال وانا قلت مركز صلى الله عليه وسلم خديجة مركز خديجة واحد خادمات أفكش الله يسوع وفي وأضانها الضم أيضا هم بدي خادمات يسقون هو كتاب ده شغالة قالت الله كانت واحد تغشى النبي أتي ماذا تغشى ضباش النبي معنا صو أتي ماذا بلغ وضع ضباشه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة مركز وفاة كذب بيد خديجة صاحبة بهذا النبي أول من شفته وصل سلام شفته فيكرمها النبي وكرامين شري إكرام شري أدركها وحسوق على عضاء بن أبي رباح في كبرها يده وين بسوق عليه وكان بها مص من الجن تابش جنها هي حاجة جنها هي ومعناها إلى صحته
yasruucaha kaasoo suuxiya